السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن أو نكسن داودياشنا قيمة يقدرين تمضن مرو بنا قد داونيسان كسر دوّد برنامج كحساب بدنا لمانها وحنا قد داونيسان وعايش لايفستايل جنرال كينا مرو البو مرو البو جوكتين وحيد لنا مركلة قام فرن يقلب فرن كسر دوّد وأنا وأح محمد وما أنت معايدين سدا واحد دين سدا برنامج عن وطلع قلي لمانها الصوماليات الدنيا دافع هذا كنول aan jecelahay maanta dardaarana hawada u soo mariyo si ay wax badan oo baabi'i lahaa insha Allah aan rajeynayo hadii Ilaahay yiraahdo inay u hagaagi doonaan waxaan u magac daray barnaamijkaas magaciisa waan isjecelnahay ismana fahano waa dhibaatada na haysato haddaan nahay Soomaali lamaana Soomaaliyeed hadda waayahan hadda jiro waxa aad u batay burburka lamaanaha waxa aad u batay lamaana badan oo nolosha shalay ku heshiiyay haddana maanta aan wada nooleen waxa aad u batay furiinki waxa aad u batay kala tagi waxa aad u batay carruur badan ee baadiyoobay nolosha ka dhacay taana sabab u ah lamaanaha markaas is guursaday nolosha isku guursaday farxad reen kuwada noolaa haddana isfahan waa soo dhexgalay way isjecelyihiin haddana isma fahmaan taana waxa sabab ah waxay tahay ayagoo soo bandhigi karin dareenkooda dhabta ah ee qalbiga ay ku qarsanayaan ee ah jaceylka isku qabaan iyo sidii ay isku daninayaan taa oo sabab u ah burburka haddaan gudaha usii galo maanta waxaan rabaa inaan si qaas ula hadlo lamaanaha nolosha wadaagay ee hadda dhibaatada dhex taala hadda aan is salaamaynin oo aan salaanta iska qaadin haddana guri iskula nool taa oo aan arkaya inay qaarkood intay ga daawanayaan qaarkoodna hadda ay carada bilow u tahay qaarkoodna dhibaatada mar hore ku dhaceen aysan hadda waxba ka qaban karin waxaan ugu talagalay barnaamijkan xiisaha badan lamaanaha Soomaaliyeed meel walba dunida afeeda ka joogan ayaan jecelahay inaan hadiye fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar haddaad hore si joogtane like share dheh si asxaab badan laga yaabo isla maanta subaxnimadan jimco ah khilaaf weyn u dhex taagan yahay taa oo sabab u noqon karto in meeshaas uu ku badbaado guryo badan waayo qofkii qoys lamaana isqaba badbaadiye ee guri dhisaa wuxuu la mid yahay masaajid dhisay markaan ka faa'iideysano barnaamijka xisaab badan ee ugu magac daray waan isjecelnahay isbara fahano waanigo ah Maxamed maanta waxaan rabaa in aan barnaamijkan aan ugu talagal lamaanaha qayb kamida aan ka dhigo boqoradayda afka ugu jecelahay xaaskiga aad baan u jecelahay mar walba waxaan jecelahay inaan garab taagnaado mar walba waxaan jecelahay dhibka la qaybsado mar walba waxaan jecelahay inta nolosheeda ka dhiman inaan gacanta seesano si inta imrigaana ka hartaa ahaano lamaane nolosha ku midoobay farxadana ku dhamaysta maanta waxaan ugu talagalay barnaamijkan in aan u sameeyo quraac yar oo aad u macaan taa oo aan jecelahay lamaane badan in ay ku qaadan doonaan ku dayasho dhiirnaan u noqon doonto waxay tahay ninka ragga ah ee xaaska leh waxa looga baahan yahay sida uu ku xadi lahaa ku kasban lahaa jaceylka xaaskiisa sidoo ku kasban karaa wuxuu kasban karaa asagoo mar walba iyo meel walba joogo ka taliyo farxadeeda waxa laga yaabaa inaad xaaskaaga la joogin laakiin farxadeeda ka talin kartaa muhiim ah inaad wax kariso waxaad soo iibin kartaa wax yar aad u hadiyin kartaa taas ayaa uga muhiimsan wax walba markaas aad inta usoo dirta laakiin erey macaan aadan dhihin xaaskaaga waxay kaaga baahan tahay koolkoolin inaad mar walba u damqato xanuunkeeda aad la dareento farxadeeda la qaybsato shalay markaan gabadha guursanayno waxaan dhanaa biyaan ka dhaxragnaa waan ku jecelnahay nolosha inta ka dhiman adigan kula wadaageena adigan ku jecelahay laanta ma noolan karo caawa ma seexan karo hadaan kula soo hadleen eraya la mid ah oo aad u macaan gabadha qalbigeeda soo jiidanaya qalbigeeda hantisay erayada laakiin waa iska tiri waad guursatay guriga degteen subaxii ku soo toosisaa subaxii ku soo toosto quraaci ku karinaysaa quraacdii aad cuntay shaqa iska aaday laga yaabay eray kamid ah jaceelada dhihin waa ku jecelaada dhihin laga yaabay inaadan xataa u mahad celinin gabadha dumarka ah waa konton xanuuno badan isaga yimaada dumarka markii la guursado waxay qabtaa xanuuno oo ilaahay qaarkood xataa waajibaadkana saaray oo ay u cafiyey waxaa kamid ah salaada gabadha markay xeedka qabto salaada ilaahay uu cafiyey taana meesha cilmiga ku jiro annagana waa garan la'nahay hal qaladina gasho maantana aftirinayna aan u factirinayna ilaa meesha ugu dambayso wala dhahay saana tahay sidaana tahay war wanaaga ee noo sameynaysa ma aragna miya guriga noo soo kacda bishii waa
اسبوع هذا قلدنا صح افر اسبوع waxa laga yaabaa hal isbuuc kamid in caafimaad qabto bis saddexda kale ay xanuunsan tahay isbuuc waxay dareemaysaa inuu xeed ku soo socdo waxay dareemaysaa isbedel xanuun badan ay dareemaysaa dabeecadii bedelmaysa laakiin adiga dabeecadii bedelantay ma dareemi kartid waxa diyaar u tahay xanaaq iyo dagaal maxay tahay isbedelkan maxay tahay waji bedelkan maxay tahay xanaaqan aad taagan tahay ayadana xanuun ahayo toddobaadkii dambe asagaba ku dhacayba waba ka sii dartay waxa laga yaabaa inaysan xataa suurtagal ahayn in inta toosto cunto kari karin ee inta isdhigto ee inta cunto ku karayso isku dayda wali in adiga ku qanciso adigana xanaaqsan tahay waad baxday shaqadaada ka timid galabtii ee waad qubaysatay labis hore iska dhigtay labis cusub gashatay waad baxday barfuun isku daadisay war sidee tahay maxaa iga dambeeyay xaaladaada ka war ma jirto waad baxday asxaab waxa u tagtay fadhi ku diru fadhiyo haddaad cilmi ku maqnaaleed maxaa ka dhibi lahaa أهلي قرابة كل مغني دليل حاجة لا فريستي تيم هبل وبدية يعني هبل وكاسا هذيك أما سياسة كشكسة وصوت تستي وإس حاجة جسي هبينك 10 ديار السي عروتي سي جورجي عارف السي إيدي إس ديار السي قاضي عنتو دمي صح حاجة بعدين الشح مالس عبيس أما عنتو عنس أنا مش أوفر السبس حتى ذا العنس أيضا نقول عشان عدي كسوجيس بالكورن قياس قفقاس وحاجة عشان تهبيني من السيما كان تاريخي أنت هردوتو iska seexato waa timid waraa cashadi maxay taas ka jirtaa qofiga fikiraya malahan waa iska hadaa maqana xataa wax u dhacamood si nadiif ah iska seexatay waa cashaysa waa seexatay hadii casho ku sugis inay kula cashaysiirta inay waqti kula qaadatir goor waqti kula qaadanaysaa marka taa waxay sabab u noqonaysaa burburkeena in meeshaasi burbur ku yimaado lamaanaheena noloshana meesha ku dhamaado ka soo qaad ubada isku dhasheen oo ilaahay ubad oo idin kala siiyay ubadkaas xagoo ku dambeyn doona marka war hadaa mar ubad isku dhashaan nolosheen inta ka dhiman ma kala dhamaanaysaan aqyaarey arunta isku sheegno hadii aan ubad xaasaskeena noolana ma kala dhamaan karno waayo ubadki amba hooyada qaadanaysa ama naga qaadanayno hooyada hadii ay qaadato waxay noqonaysaa oo xaqa ku saaran wuxuu yahay inaad carruurta biilkooda bixiso inaad daawadooda bixiso inaad meesha seexanaya bixiso ee dharka xiranaya bixiso waxbarashada aad bixiso talaafig ugu horeeya soo wacdi Allah hadlaysa isla gabadhii Allah hadlaysa xumeysay nolosha ka doorata rag oo idin adiga ka dooratay waxa la dhahayaa baa sidee tahay xaaladda ka waran qasab waay kadib waxaad gudinaysaa carruurtii okay gabadhii inay guursanaysaa markay guursato maxaa dhacaya marka waxaa dhacayso inuu nin kala yimaado laba nin guri kuma wada noolaato waxba isku ahayn laba nin oo isdhalin lagama yaabo in guri ku wada noolaato wiilku waxa laga yaabaa waxbarasho ka yimid oo daalan yahay haraadsan yahay hooyisu baahan yahay hooyadii adeerku waxa laga yaabaa in qol ku jiraan wiilka markuu yimaado yaa joog adeer ma joog ha haraadka hay iyo baahida heesay iyo hurdada heesay oo la qayaa wuxuu leeyahay adeerkan nacay wuu ka tagayaa waxa laga yaabaa dhalinyarada inay duufsadaan magaalada sida ugu baxo taana mustaqbalkiisa baabi'iso taana maxaa sabab ah adiga ninka ragga ah ee ogaan waaye xaaskiisa meesha ay ka fiican tahay ee fiiriyo halka meel ay ka xun tahay wanaageeda inta ay ka fiican tahay ana fiirin taana waxa sabab ah annaga oo nolosha fahmi la nolosha maxay tahay marka nolosha waxay tahay inaad xaaskaaga waqti la qaadato shalay sidaad jaceylka ugu sheeganaysay sida shalay aad u dhaysan ku jecelahay inaad maanta ula qaadato farxadda ula qaybsato dhib walba oo kula soo gudboonada u sheegto sida kula qaybsato farxaddan ay kula qaybsato haddaad farxadda ka qariso murugta kulama qaybsan karto Soomaali waxay tiraahdaa ninka tiin abuurto timir ma ninka tiin beerta timir ma guranayo ee waxaad beerto un baad helaysaa gabadhii shalay reerkeedii ehelkeedii asxaabteeda kaaga soo goday haddaad maanta xumayso aydan ku xumaynaysaa haddaa wanaajisatana way ku wanaajinaysaa hal wanaag aad u samayso weligeed ma iloobayso way xasuusnaanaysaa hal eray xumaan haddaad u geysatana lagama yaabo inay ilowdo qalbigeedana xumaan un baa kugu jirayso ninka ragga maxaa looga baahan yahay marka in xaaskiisa garabkiisa u saaro ay cilad walba iyo xumaan walba ay dareemayso asaga ay ka dukaashato dhaxanta ay ka dukaashato farxadda ay la qaybsato ninkaas ayaa ninka ragga ee reerkiisa la jooga farxaddan la qaybsada intaasi waa iga dhiirigelin aan ugu talagalay lamaanaha aniga ay haysataa marka maanta maxaan xaaskayga ugu talagalay si aan u kasbado jaceylkeeda si aan u kasbado wanaageeda si aan u kasbado inta nolosheeda ka dhiman inaysan iloobin ayna ka shalaynin guurkeeda guurkii aan isguursanay inay ilaahay uga mahadnaqdo maadaama aan u ahay nin jecel waqtiga inaan la qaato fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe haddaad hore usii joogtaan like share garee si laga yaabe qoysas maanta burbur lahaa ay u gaarto haddii aan u guda galo barnaamijkayga aan ugu talagalay boqoradeeda ifku jecelahay wax kala maahan
xaaskayga maadaama ay tahay qof walac ah ama ubad aan aniga aabbo u ahay ilaahayna uga baryaa inuu si nabad ah ku kala keeno waxa laga yaabaa cuntada qaar ay karinayso is jeceshahay laakiin markay kariso ay dhibayaan carafteeda sidaas daraadeed waxaan jeclaystay maadaama ay subax jimca tahay maalin farxad badan ay tahay toddobaadka ciidiisa ay tahay maanta waxaan jeclaystay boqoradeeda aan ifugu jecelahay inaan u diyaariyo wax yar oo kadis ah adigana aad la aragtaan aad ila samaysaan waayo waxay tahay waxaa laga wax badan inaan qaldo gabdho badan daawanayaan waxaan leeyahay wixii aan qaldo kulley waxaan rajeynaa inaad iga sixi doontaan wixii aan saxana waxaan rajeynaa inaad igu taageeri doontiin gabar walbo Soomaaliyeed waxaa leeyahay nolow hooyo walbo Soomaaliyeed waxaa leeyahay cizi iyo sharaf ku nolow wiil walbo Soomaaliyeedna waxaa leeyahay nolow ragga muuqdo xumo qaarkood waxaa laga yaabaa in aqoon darri ay timaado isfahan la'aan ay timaado laakiin way fiican yihiin oo weli boqorin ah ما شاء الله أد بانو جعلها دمان أنت كحرن عايش لسترجنا كنا فضلا سودا هذا هذا ما حروا هوش إذا نقوله هذا هذا إذا كوب بدينا يجرى على هذا وحروا هوش إن نقوله أو أن كديس كان ترى جرب بقرد إذا نفرج على إذا كان أد لو ذاكتان سياد ورقتان وحيابه أنا وطلع جلي مركا ما شاء الله ما شاء الله هوس عادي كوسو ديغو سي اد الى aragtaan sida aan wax u rabo maanta waa kana maanta sidaan ay ka shidan tahay waxaan ugu tala galay xaaskii qeyr Allah siiye caafimaadna Allah ay siiyo ma sha Allah lama rabo Soomaaliyeed nolosha midoobayna waxaan ugu rajaynayaa Ilaahay inay farxad iyo reereen nolosha ku dhameystaan nolosha waxay ku macaan tahay meesha aad ku bilaabato inaad ku dhameysato si aad farxad iyo reereen aad ugu noolaataan marka ما شاء الله أصحابتي قالي أنا أسكت صلى الله بنو وحير أنت سريدين ويا كلنا نسوا وما أنت محات ما لنا سان كريم كرو سومالي حتى هذا قفا وحقلدين وحمصحوا ما أنت وحن ديار وحاسكي يعني في وجه علىها إنك دورتي قبله يدل إن أنا قلت لك قالي تلعب بلاش وحلاقي بحرق قاح إن لقى مرة محيط هني كان دمرك أنت كده ومر جي كده قلاي لكن وتصوحي تهي وجاهل لمو xaaskaaga inaad caawiso wax dhiba ma keenaysa farxad iyo reereen iyo jacayl mooyaane iyo kalsooni war anaga xagga ku jirnaa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa xaaskiisa caawinayay oo hawsha la qabanayay marka maxay tahay waxa cusub aad u maleysaan inay hadda soo korortay xaaskaaga inaad caawiso waa xaqay kugu leedahay waayo haddaad caawiso way ku caawinaysaa haddaad caawino kuma caawinayso haddaad sida shaqaaliyo kale ka dhigatane waa dhig intiisa la eg hadda waxaan rabaa iga raali ahada سليد ويسير كل ما يسوح يدي أرسلنا ملهن والله حن ربع مركه هراء إن قبل الصوماليات ملو بيجوجان حن لي هاي حد يوم حقل تفضل يقصحها سي طبعا رجع كم يمكن رجينا إن شاء الله هديان وحصحينا إن أبوه مانتا يقول لي لسان إن الحاس كي يقاول كرو هدي أو حقل ضرب استحضان ما شاء الله أدبن وقفر حلا مدرس ويوحيت هاي صومالي حتى رقفة وحقل دين وحمصحه marka ma sha Allah waxaan rajeynayaa insha Allah haduu Ilaahay raali ka aadan xaaskayga caawin karo oo wixii aad u baahataan aan cid bin aadan ama gabar kale aan wici karin oo aniga ku filanahay marka ma sha Allah asxaabta qaaliga ah ninka ragga ah waa ninka reerkiisa garab taagan farxadda la qaybsada murugadana la qaybsada mar walbana farxadooda ka taliya niyada u dhisa dhibaatooyinkana tunka u rido si uu reerkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisa u farxad geliyo oo isku dayo in farxadda ayaga la qaybsado dhibaatadana uu isku dayo inuu qariyo ilaa waxay tahay marwalba qofka aad jeceshahay farxadiisa ayaa la raadiyaa murugta aad baa looga ilaaliyaa marka ma sha Allah asxaabtayda qaaliga aad baan idin jecelahay lamaan walba Soomaaliya waxaa leeyahay noolaada ciisi sharaf ku noolaada Ilaahay waxaan ka baryaa inta dhibaatada hadda dul ka dhex aloosan inuu Ilaahay ugu bedelo farxad iyo reereen iyo wadajir iyo kalsooni isfahan ka beerma marka ma sha Allah asxaabta qaaliga waxa laga yaabaa xataa inay sii diiriyay ma garan karo laakiin Soomaaliya xitira dadaala uu gaaraa insha Allah waan rajeynayaa intaas in ka badan uu sameeyo doono boqoradayda afka ugu jecelahay marka ma sha Allah asxaabta qaaliga waxaan u maleynaa waxaan jarjaray inaad arkina laakiin waa ka asxaabta hadda waxaan jarjaray basashi walo laga yaabaa in sida loo baahnaa aan u jarjarin laakiin aan isku dayo hadda waxaan iska sii diyaarsanayaa yaayadii asxaabta qaaliga ah meel walba joogtiin
soo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan aad baan idin jecelnahay lamaan walbo Soomaaliyeedna waa jecelnahay qoys walbo dhisan waxaan leenahay farxad ku noolaada farxad waxay ku jirtaa reerku isfahma waxa laga yaabaa inay gaarto baasha basashi inaan ku dari karo marka inaad aragtaan ayaan rajeynayaa marka ma sha Allah ayaa asxaabta qaaliga waa subaxnimo jimca ah oo aan jecelahay inaan farxadaasi ila wadaagtaan oo aan jecelahay lamaano walba Soomaaliyeedna inay markaasi nala wadaagi doonaan insha Allah ما شاء الله صعبت قاليقة انت ايدي لحد لاي وهذا الكي كو ودي سليدي بساش اد يقفل لادين لكن صعبت قاليقة حدي ان wax qalda fadlan dhanka commentiga ayaa idinka rajeynaa inay iga sixi doontaan hadii aan wax saxayna waxaan idinka sugayaa dhiirigelin si aan ugu dhiirado digri haddana inaan u sameyn karo shay kale ay ku faraxdo qardaydan ifku u jecelahay haddii aan commentigiina waan waxay cadeynaysaa taas inaan wax dhiirigelin aad ii helina aad ku qancina barnaamijka aan ugu talagalay dhismaha lamaanaha nolosha wadaagay ee farxadda aan jecelahay inay ku noolaadaan ما شاء الله أصحاب قليقة هذا ما حرجينا إن دياري انت بدن سيدي قص بكرتا بقرض دافك ugu dooratay nolosha aad jeceshahay inaad la wadaagto inta cimrigeeda ka hartay waxaad ku qaadan kartaa aad ku kasban kartaa ku xadi kartaa jacaylka idinka dhaxeeyo waa adigoo mar walba wanaageeda iyo farxadeeda ka taliya sabta qaaliga waan bilaabayaa waxaan ku darayaa yaanyadii waan yara daboolayaa ilaa bal cabaad ما شاء الله صعبت قاليقة aad baan idin jecelahay iga raalaada wax yar gacanaha ayaan soo meeranayay ما شاء الله marka waxaan jecelahay lamaan walba Soomaaliyeed ifka intii ku nool yihiin inay ahaadaan reer farxadkooda noolaada ma aha ninka ragga ah inuu inta jika soo galo kaliya oo wax kariyo laakiin xaaskaaga si walba ku kasban kartaa markaad shaqada ka timaado hal waxa soo iibin kartaa kaasad gudoosin kartaa waxaad sameyn kartaa wax yar ee ku farxdo ee jecesha hadaad garanaysaan waad u keeni kartaa waad gudoosin kartaa taa ayaa farxad u ah haddii aad cunto u karisana kaba sii macaanba waayo waxay tahay cuntadan waxay uga macaanaysaa cuntooyin badan ee hore usoo cuntay iyo mid walba badan ee gacanta ayda ku samaysatay waxayna ku abuuraysaa jecel badan iyo raggii ay ka dooratay inaysan ku qasaarin nolosha inta ka dhan ku garab taagnaanaysaa taana wax ku gaari kartaa idinka oo hal meel ku wada noolaadaan ninka ragga waxaa looga baahan yahay mar walba xaaskiisa inuu garab taagnaado gabadha maxaa looga baahan yahay marka ninkeeda inay adeecdo sax waayo janno waxay ku galaysaa dhinacyadoo shanteeda salaad dukato ninkeedana adeecdo intaan ka ahayn wax diinteeda dhibaateynaya marka ما شاء الله lama rabo Soomaaliyeed waxa leen noolaada farxad iyo cisi sharaf ku noolaada taana wax ku gaari karnaa reen inaan ku wada joogno ما شاء الله saacadii qaaliga ah marka hadda waxaan isku dayaynaa haddana bal inaan fiirino sida aan bal u kariyay bal ila eega sida aan wax u karinayo waxaan isku day doonaa insha Allah inaan bal dadaalo
waxaan isku dayayaa inaan burburiyo yaanyadii iga raalaada. waxaa laga yaabaa dadka qaar inay arkaan anigoo bidix ku karinayo, waayo anigaa bidix ah, anigaa guri ah. marka waxyaabaha culus waxaan ku qabtaa bidixda, waxyaabaha fududna waxaan ku qabtaa midigta. laakiin waxaan isku dayi doonaa dhaqankaasi inaan iska bedeli doono. marka maasha allah waan fiirinaynaa, bal waxaan isku dayi doonaa marka inaan raadiyo waxyaabihii kale oo suurtagal ah in lagu dari karo. si aan jikada u baar, waaw waxaan ka dhex helay barbarooni, basbaas, alaabahan waan soo helay. waan ku dari doonaa insha allahu. Soomaali waxay tirahdaa qof aan wax qaladin wax ma saxo. fadlan marka asxaabta waxaa idinka codsanayaa haddii aan wax saxay inaad igu dhiirigelisaan si aan biri aan ugu dhiirado in boqoradeeda aan ugu jecelahay aan u sameeyo cunto kale ay ku qanci karto ama ay ku farxi karto. waayo waxaa laga yaabaa maanta oo jimco ah subaxnimadan farxadda wadata ciidda toddobaadka ah ayadoo la iska faraxsan yahay, haddana inay farxadda usii siyaadiso quraacdan yar aan ugu talagalay aan u sameeyey. sidaas daraadeed waxaan rabaa in farxaddaas maanta ay noo laba jibaarmi doonto. taana waxaa mahaddeeda iskale ilaahi subxaana watacaala maanta ii fududeeyey inaan isku dayay bal inaan u sameeyo shaygan. canjeerada ma dubi aqaan, laakiin waxaan isku dayi doonaa ayada inaan baran doono. waxaan isku daya hadda inaan rooti inta usoo iibiyo, markaan kan kala tuuron diyaariyo rooti usoo iibiyo, markaasna sikadiisa inta saxan ugu rido aan ugu geeyo. maasha allah asxaabta qaaliga ah, lama walbo Soomaaliyeed waxaan rajaynaa insha allah farxadda waxay ku jirtaa dadaalkiina. waayo shalay markaad jecleed wadiis waan ku jecelahay laanta ma noolaan karo, macnaheedu waxay ahayd erey aad afka tiri. wixii qalbiga ku jira subxaana watacaala unbaa daalaca kara, laakiin ficilka qofkaan ku qiimeyn karnaa. ficilka adiga aad wadato unbaa lagu jeclaan karaa. si walbood u jeceshahay laakiin erey macaan aadan dhihin, taa macne ma caddayn karto inaad jeceshahay. laakiin waxaa laga rabaa inay kaa muuqato dareenka aad gudbinayso iyo ficilka aad samaynayso. taana waxaad kusoo jiidan kartaa, ku kasban kartaa qalbiga xaaskaaga, kusii laba jibaarmayso, kusii jeclaanayso, markaad ka maqantaa kuu xiisayso. marka dad qaylo la soo fariisatid oo marka soo istaagto adigoo salaam maxay tahay sidaan, maxay tahay carruurtaan buuqis guriga deriskayga geey aan ka seexday oo carruurta soo adiga ma dhalin. carruurta adiga rabidyaa raba. marka carruurta waxaa la rabaa inay kugu soo cararaan, dhabtaada ku cayaaraan, kula baashaalaan. ayagoo baashaalaan suurtagal naqta inay hurdaan. taa ayaa lahaa aabbaha saxda ah ee nolosha la wadaagi kara xaaskiisa. ma ahan kan carruurtiisa laga qarinayo markuu imaanayo ama libaaxeesa socday ha loo gooyo, waxaas qalad waayo. taana waa kaftan. ragga wada xumo waxaa ku jira boqorro, waxaa ku jira maasha allah rag xaasaskooda qadariya, xushmeeya, aadna u jecel. in yar waaye intaasna waxaa laga yaabaa inay garash xume u geyso, inay fahan xume u geyso, in nolosha aysan weli qaar aysan waxba ka fahmin. marka waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed meel walba dunida afeeda ka joogaan, xaasaskiina waa idin jecel yihiin, laakiin isku day toddobaad amba 3 habeen amba 4 habeen erey macaan aad ku tiraahdo, bal haddii yaro qurux badan u keentid, bal waxay ku farxad aad u keentid, bal isku dayda inaad xaaladeeda waraysato, bal isku dayda inaad waqti la qaadato. habeen shanaad haddii xataa aad seexato xataa wax kale waxa ku dhacaa isbedelaa jiree maxaa jira maxamuusan tahay. taana waxay sabaysaa in wixii aad adiga aad bartay wanaag ah inay kaaga baahan tahay. haddaa xumaan bartani ay xumaantii unbay la taagnaanayaan. si walba u hanaagta xataa ayada kii wasa socdaay bismillaahi raxmaani raxiim ilaa shirtiisana mutiye. marka taana waxay sabab noqon kartaa burburka lamaanaha. haddana waxaan isku dayi doonaa inaan balo haddana aan aragno siday kusoo bixi doonto. fadlan asxaabta haddaad ugu cusub tahay subscribe-ka anaga iloobin. haddaad hor u joogtana laagta iyo sheerka. fadlan asxaabta lamaanaha Soomaaliyeed aad taqaano dhibaatooyinka dhex taagan yihiin, burburka u dhow maanta oo jimco ah, bal gaarsiin si laga yaabay inay waano u noqoto ama wax uga faa'iidaan berri ay u noqoto lamaan nolosha wadaagay farxad ku dhamaysta. taana waxay sabab u noqon kartaa adigoo markaas u sheer gareeya. mar walba waxaan jeclaan lamaanaha Soomaaliyeed inay farxad iyo reen iyo wanaag ku noolaadaan. taana ku gaari karnaa
taana wuxuu gaari karnaa bulsho farxad ku noolaata waayo bulshada waxay sharaf leedahay intuu lamaanaha wada nool yahay carruurtu waxay sharaf leeyihiin inta hooyadood iyo aabahood ay wada nool yihiin waayo wiilka aabihiisa ku fiican tahay in isku hadda waxaad arkaysaa dhibaatooyinkeena haysta lamaanaheena waxay tahay waxaad arkaysaa iskuulaadkiyaan geeyey waalidka marka la yidhaahdo maamulku yidhahdo waalidka la keeno hooyo unbaa sii socoto aaw aabihi ilan bini aadan xayawaan ma nihini waxaad arkaysaa iskuulka markii la aadayo hooyo unbaa cunug gacanta kasii wado maamulka ciida la hadlayso waxay leedahay aabihiisaan waa maqan yahay ama safar ku maqan weli waa ceeb qarinaysa waxaa laga yaabaa inuu meelaha la fadhiyo fadhi ku dir carruurtiisa soo weyn waxbarashadoodii dugsiga qur-aankaa soo hartay hooyo unbaa sii socoto markaad fiiriso way yar tahay bulshadeena hadda aabba inta cunugiisa gacanta ka qabto waa hal iyo dhif markaan arkana maasha allah baan ugu farxaa anoo wadada maraayo markaan arko wiil aabbo cunugiisii dharka iskuulka wato uniform wato oo gacanta ka hayo ma arkaysa qaarkood waxaa laga yaabaa inaysan joogin waxaad arkaysaa wadamada qaar hadda waddanka ku sugan oo kale Kenya carruurtii waxaa doonayso naagta guriga ka shaqaynaysa madowga ahaa aabihii ma oga oo ma waxaa laga yaabaa qaar hadduu fiican yahay qaar ka shaqo ku maqan yahayna waa suurtagal waayo waxay tahay inta badan guri ma joogi karo laakiin hooyadina ay guriga joogto waxaa loo soo dirayaa naag madow ah guriga joogto waxaa laga yaabaa cunug inuu gaari dilo waayo hooyadan naagtan aad u dirta ma dhalin sidaad adigu dirinaysa ama ugu cabsanaysa maysan macnaha uguma cabsanayso marka aan ku dadaana taas waqtigan aad buu nagu sii dheeranayaa marka waa isku soo laabanaynaa wax yar asxaabta qaaliga wow inaba caadi maahan hawshii gabagabay ku socotaa fadlan marka kaale gabdhaha quruxda badan ee Soomaaliyeed bal ila daawada si aad u aragtaan bal sidaan wax u sameeyay waa ka waxaan ka dhiman weli cusbada waayo waxaan maqlay in cusbada ay ka fiican tahay maraq digaaga waxaan kaloo rabaa oo aan jecelahay bal marka hore aan ku walaaqo ilaa wacayta astur oo ay ku faraxdaa boqoradaan ifka ka doortay hadda maxaa ii dhiman marka bal kaalaya wixii aan jarjari karo waxaa dhiman barbarooni asxaabta fadlan waxaan ka codsanayaa ragga iyo dumarka i daawanaya rag badan wax karinta aad u yaqaana ayaa jira waayo waxay tahay maqaayadaha wax ka kariya waa ragga taa horta inaan garanno ayaa raggeena qaar taasi soo ogeen maqaayada tagtay nin rag wuxuu kariyay baab cuntay wixii soo kari mis weydiisay maqaayada waxa joog waayo dumar way ku adag tahay maqaayad dhan inay ka kariso maadaama aysan marka qaar ku adkaysan karin walow ay jiraan dumarka qaar ay ka kariya laakiin 90% waxa wax ka kariya waa rag marka taas inaan garanan aad bay u haboonaa lahayd marka ceeb maahan inaad xaaskaaga adigoo shaqeynayo oo mushaar ku qaadanayo waa karin lahayd adigoo xaaskaaga aad u karinayso waliba nafsadaada naftirkaaga aad u cunayso kaligeed aysan cunaynin oo kumanaan sano ay ku karinaysay ama kumanaan bil ama kumaan maalmo badan ay ku karinaysay wax yaraan rabaa inaan ku yaraa asxaabta qaaliga ah meel walba dunida daafeed ka joogtaan aad baan idin jecelnahay waxaad naga daawanaysaan waa channelkeena Aisha Lifestyle fadlan hadaan cusub tahay subscribe ka naga iloobin like iyo share Soomaali xitaa qof wax qaldin wax ma saxo fadlan haddii aan wax qaldayna igu dhiirigeliya si aan berri aan u sameeyo barnaamijyo noocyadaan ka duwan ah ha ahaato cunto karin ama barnaamij kale boqordeedaan ugu talagalay aan ku dhiirigelinayo lamaanaha Soomaaliyeed ee maanta jimcaha burburku dhow كلي وديار عن واو ما شاء الله أدبر وفرحسنا هاي ما دام أنا نصيب ما تقول يا شو جماعة إن بخلدي إذا نكتب بجعلها إن لو لاقى يا قرعنا أنا وطلع لي حديان أو ذكبر أنا نص مينا يا وقيب كم يجركيجا فضلا دار مسوا سبسكرايب لايك شير أصحاب تلاقي سيبر برنامج كان أو قيب اللي بحلو وقاطو كهرتجا بربركا لما أنا Soomaaliyeed لما أنا كلمة هنا carruurta suuqa gali lahaa ama baadiyoobi lahaa taas nasiib u yeeshaan hooyada aabood inay la nool yihiin taana berri ayagana mustaqbalkooda ay uga fikiraan waayo waxay tahay maanta markaad wiilkaaga ama gabadhaada maanta aad heer gaarsiis berri adiga un bay ku taalaa markaad da' noqoto inay gurub istaagaan waalidkeen maasha Allah si fiican u sukuri laakiin haddii adiga ninka ragow gabadha aad dhashay ama wiilka aad dhashay oo kala garan waayo adeer iyo aabo waxaad u tahay soo dhibaato maaha subaxii asagoo hurdaya adigoo hurdayo shaqo oo waxbarashada aado
habeenkina asagoo hurda aad u timaado oo aad seexato oo aad u fahmo marti u timid kaliya marka waxaa la rabaa in carruurtaada ay kala garan karaan qiimaha aad leedahay waxaan idinkaga tegayaa anigoo ah maxamed gabar walba Soomaaliyeed hooyo walba Soomaaliyeed noolaada cisi sharaf ku noolaada lamaan walba Soomaaliyeed raggana sidoo kale waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimco wanaagsan maalin wanaagsan